moogtahay in sheekada ninkan idin muuqda ay feeral ka noqotay baraha bulshada saacadii la soo dhaafay kadib markii la waayay cidhib iyo jaal meel uu dhigay Julian Brown waa nin madow 22 jira kana soo jeeda magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkaas Mareykanka wuxuu dhashay sanadii 2003 wuxuuna caan ku noqday hal abuur aan caadi ahayn kaasoo ahaa in caaga qashinka uu bedelo shidaal la isticmaali karo. Julian wuxuu sameeyay mishiin casri oo isaga u gaara kaas uu magac daray Basolin waxaana la sheegay in mishiinkan uu awood u leeyahay inuu qashinka caaga u bedelo shidaal noocyadiisa kala duwan sida naaftada, gaasta iyo batroolka. mashruucan ayaa si weyn u qabsaday indhaha bulshada isagoo bartiisa TikTok ay ku xidhan yihiin in ka badan 1.4 milyan halka Instagram-kiisana ay ku xidhan yihiin in ka badan 1.8 milyan oo qof. laakiin guushaas waxay u muuqatay mid aysan dadkooda jeclaysan waxaana soo baxay warar sheegaya in shirkadaha waaweyn oo dana kala batroolka iyo warshadaha tamarta ay ka xaroodeen ikhtiraca Julian maadaama uu khatar ku yahay faa'iidadooda. wuxuuna sidoo kale muuqaalkiisa TikTok ugu dambeeyay ku soo bandhigay sunscreen dabiiciya oo aan lahayn kiimikada keenta kansarka taasoo sii kordhisay khatarta ku wareegsan noloshiisa. muuqaalkiisii ugu dambeeyay ee uu Julian soo dhigay bartiisa Instagram wuxuu ku sheegay in la soo weeraray isla markaana dad isku dayayaan in isaga aamusiyaan oo ay ku daba jiraan. taasina waxay ahayd 9kii July sanadii 2025 tan iyo markaas in ka badan 20 cisho lama hayo wax wara oo rasmi ah oo ku saabsan halkuu ku sugan yahay mana jirto baadhitaan rasmi ah oo ay bilaabeen booliska Atlanta. inkastoo hooyadiis Nia Brown ay sheegtay in wiilkeedu nabad ku jiro laakiin aysan awoodin inay shaaciso meesha uu joogo. sheekadana waxay dhalisay shaki, cabsi iyo tuhun iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in Julian la aamusiyay sababtoo ah hal abuurkiisa weyn. haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo ma laga yaabaa in Julian Brown soo la kaca loo aamusiyay sababtuna ay tahay hal abuurkiisa? maxaad adigu ka aaminsantahay sheekadan saaxiib? qaybta commentiga ee hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saarana aad subscribe dhaado.